waxaynu aragnay inaynu degdegnay waqti aan waqtigeedii tagnay markaa waxaan goosanay oo ragga tiri waa kan wax xusanahay burca markii lagu go'aamiyey reer Boorama riwaayada keenay astaanka waa keenay suuraddii la akhriyay waxaan joogay markaa Finland alam nashrax baa la akhriyo waxa akhriyay Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Cali Jawhar Sheekh Abdullah ya akhriya alam nashrax baa waxa xusanahay horta sababta aynu gaar ugu baxnay sabab bay ahayd ama ahayn xukun jecel ma ahayn xukun jecel wuxuu ahaa inqalaabkii SSDF-ta iyo magaalada Jabadii Maxamed Cabdullah Yuusuf iyagu xukun jecel ba ahayn inagu laakiin badbaad ahayd wax qalad dhacay ma saxini waynu saxnay markaynu saxnayna sidii 60kii aynu haddana bilaa barnaamijka aynu ugu tagnay koonfur ayaynu haddana bilaa barnaamij aynu goon istaag samaysanay waynu goonaan isku taagnaa waa la heeso calan baan taagnay waxa la qorshe loo sameeyay ma jirto waxa qorshe loo sameeyay ma jirto 3 bilood gudahood ayay kuwii ku dhawaaqay goon istaag haddana istileen waa ogeyn dagaalkii burco ka bilaabmay waa loo gurmaday berberu ku bilaabmay waa loo gurmaday sheekh baa lagu heshiiyay haddana uu ka bilaabmay dawaatii berberaha la goglay Boorame maanta sijaayada lagu fadhiyaa waa soo sheegay Jamaale waa sijaayadii awdal baa lagu fadhiyaa awdal baa lagu fadhiyaa maalintaas ceergaama lama fadhiisan karin waa dunsaneed burco lama fadhiisan karin Hargeysa Berbera 6 district laascaanoodna markaa may hagaagsaneen Boorame ayaa wanaagii bilowday nabaddu waxay ka bilaabatay galbeedka horumarku galbeedku ka bilaabay meel meesha ka galbeedsan tahay way ka horumarantay jaamacadii horisaadana bilowdeen maanta jaamacad halkaan ka sameeynay ceergaabi iskuul ma lahayn laascaano iskuul ma lahayn iska daa jaamacade burca ma markaa ka hoose lahayd waxa weeye walaalayaal barnaamijkaas wali lagu jiraa barnaamij lahaan baa lagu jiraa waxaad moodaa inagu in wax kasta intan wanaajino talaabo wanaagsan qaadno haddana laba talaabo xun aan dib u qaadnaad moodaysa iyaga qudhadooda inaynu wax ka qabno inaynu iska xidhna maahay waa inaan wax tarnaan gacanta siinaa wey oo wanaaga aan tusnaa oo aynu la hadalnaa oo aynu war laba dawladood walaalo isbarbaryaan isbarbajo si Jabuuti kale 3 wadan oo Soomaali oo iyo ku jira igad oo UN-ta ku jira maxay idin yeelaysaa oo inuu aqal celinaa markaa walaal hawl baa inoo harsan hawl dadku inagu ma jiranaya yaanaynu maanta la ficiltaan min administration hadduu xumaado waxaynu kula ficiltaan waa bedelna biidnillaahi tacaala annagu waxaan idin sheegayaa oo barnaamijka ku jira waa ogtiin maanta dawladda waxay qaban jirtay service kooda waxba ma qabato dawladda biyo waa lacag laydhkii waa lacag ma tacliinta waa lacag caafimaadku waa lacag intaba gacanta dawladdan ku soo celinaa insha Allah tacaala intaba maanta waxa weeye reerkii aan lacag haysan baa caruurtooda jaamacad geli karaysa reerkii faqiirka ahaa farish weeye iskuul yar oo waa dawladdo sagaalka albaabka caruurta lagu xidho oo intuu macalinka meel kale iska tago private ilaa 12 kooda lagu xariyaa meeshii jooga waxaan jecelahay inaanu iskuulada dawladda tayeeno ka private ka furayna aan ku xidhna shuruudo adag ma doonaa insha Allah tacaala inaanu badino iskuulada farsamada vocational schoolka aan doonaa insha Allah tacaala inaanu boqolkiiba 15 aanu gelino budgetka tacliinta boqolkiiba 15 aanu gelino caafimaadka aan doonaa labada meelood doonaa inaan xoog saarno biidnillaahi kariim waa labada iyo horumarinta reer miyiga inaan laga soo iman reer miyiga magaalooyinka kale isku imane aan xooleyda lacagayno doonaa insha Allah tacaala aan xooleyda lacag gelina doonaa insha Allah tacaala walaalahay way dalkii waan haysanaa waxa qorayso waxa weeyaan hoggaan fiican helo maanta qabyaalad baad jirta qabyaaladna waxa wada waa madaxda weeye ilaa madaxdu hagaagtan qabyaalad laga bixin maayo waxaan inka maalinta wata jamaacadda madaxweyne waxaan soo jeedin la sameeyo guddi madax bannaan oo independent commission baada sida wax loo qoray wasaaradaha u qaabtaan sida ugu qaataan hay'adda shaqaaluhu sida qandaraasyo loo bixiyo hadda la yiraahdo sameeyaan doonina marka waynu wada guntanina wax xumaantana way taabatay meel kasta way taalaa idima gaar aha
gaar ha iskaga dhigna baan leenahay insha allahu tacaala waxbaanu ka qabannahay markana waxaan leenahay laba guddoomiyaanu hayno reer booramaana iyo riyaale berigii foodka waa iga siiseenoo dee isaga wixii dheeraa inanta iyano reer booramayd xaaskiisa marka halkaasuu igaga helay doorka waxa weeye waa ucud insha allahu tacaala dhaxalkeeda annaga ale insha allahu tacaala intii markaa udub ee riyaalana noogu dara insha allah intii hore ay siiseen iyo intii riyaalo marka helano annaga 108 helna insha allahu tacaala waa mahadsantiin ciid wanaagsan waxaan jecelahay inaynu saa wada gacanta ka wada shaqayn doono Soomaaliya wada daafici doono insha allahu tacaala